بسم الله الرحمن الرحيم. golaha wasiirada xildhibaanada labada gole labada aqal gudoomiyaha gobolka Banaadir ciidamada qalabka sida gudoomiyaasha degmooyinka 17 degmo dhalinyarada gobolada Waabari hooyada fanka marti sharafta kale dhalinyarada guud ahaan gurmadka qaranka waxaan ku salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. allah mahad iska leh oo maanta suurtageliyey inaan maanta halkan isugu imaanno. waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka mudane Taabid iyo gudiyadiisa noo soo qaban qaabiyey furitaankan shirweynaha ololaha nabadeynta gobolka iyo waxaan u mahad celinayaa gobolada Waabari sida wanaagsan ay noo soo xasuusay hawlihii lagu yaqaanay ee wacyigelinta ahaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo amaan xasuusino xaaladda dalka uu ku jiro waxa weeye xaalad dagaal. xaaladdan dalku wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah. waxaa isweydiin leh maxaa keenay ileen dagaal wax sahlan ma aha. haddii dagaal uu jiro waxaa istaaga wax alla wixii horumarin ah ay ka mid tahay waxbarasho, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto waxbarasho, wax walba waa istaagaan haddii uu dagaal jiro. maxaa keenay 10 sano waqti yar maaha. maxaa keenay dalkan inuu ku jiro muddo 10 sano ah dagaal, xaalad dagaal uu ku jiro. waxaan idiin sheegayaa caawa cilada meesha taalla oo rasmiga ah. xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro. waxaa dagaal ku jira oo kaliya dadka dawladda ah oo kaliya. iyaga waxaa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo Soomaali muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka. maxaa yeelay waxaa jira qaacida taariikhi ah oo 2000 iyo ka hor la qoray oo military doctrine ah oo ka hadlaya xaaladaha dagaalka. qaacidadaas ama formulahaas waxay leedahay haddii dawladda iyo shacabku aysan wada shaqaynayn ama haddii shacabku uusan la shaqaynin madaxdiisa ma guulaystaan. macnaheeda cidda shacabka ee la shaqaynayso ama cidda shacabka la socota yaa mar walba guulaysata. macnaheedu waxay tahay ciidanka kaligiis ma guulaysto, xukuumadna ma guulaysato, shacabka guulaysta. shacabka cidda ay la socdaan hadday taageerayaan dawladdaas iyo hadday taageerayaan xukuumaddaas iyo hadday taageerayaan ee kalsooni siinayaan madaxdaasi iyo dalkaasi waa guulaystaan. macnaheedu waxay tahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa oo muddo 10 sano ah weli dagaalkan inuu socdo oo aan isla helin la'nahay taageerada shacabka iyo kalsoonida shacabka ay u qabaan madaxdooda ay u qabaan. shacabkeenu waa shacab wanaagsan waa ognahay, laakiin mar walba waxaa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dawladooda iyo madaxdooda waxaa ku dhex jira danley yaa ku dhex jirta. danleydaasi wax hadda taagan kaliya ma ah. waxa weeye waa wax soo taxnaa. anigu maanta qalbigayga idin kala hadlayaa. waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor iyadoo 1 bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yidhi dawladdan waa in la mucaarado, waa in laga hor yimaado, waa in mooshin laga keeno. waa xaqiiqo way. maba dhalanba dawladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarasho ku jirtaa. markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimadiina hadda way socotaa
iyadoo indha lahayn dhegana lahayn oo ah dhaqan hore u jiray waxaad hadda arkaysaan 4 sano ka hor way jirtay dowladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yiri waa la mucaaradaya dowladdaas ee ka soo qayb gal oo xaqiiqo waxa idin sheegayo oo waxaan ku yiri dowladdan 6 bilood jirtaaye maxay ay sameeyso lagu mucaaradaya dadka hawshan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqada idin sheegaya waxaan kula taliyay oo ilaahay hortiisa ah waxaan ku iri waqti hala siiyo dowladdu waa urdun hadda la doortay sanada siiya waqtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira hal sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka halaabay waa bini aadane intaas keena oo ummadda u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan laakiin lugaha iyo tafaha ayaan la qaban dowladda haddana tiibaa socota tafihii baa la rabaa in la qabto oo 10 sano ka hor wixii bilowday hadda ay socdaan oo dib loogu noqdo waxyaabaha keenay in dowladda iyo shacabka la kala fogeeyo waxaa la yiri been fakatay run ma gaarto markii propaganda iyo been iyo wax aan jirin lagu celceliyo shacabkii rajadooda hoos yaa loo dhigaya waa la qalbi jabinaya sharcigi ee shacabkii ilaan been iyo propaganda iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan xaqiiqo ahayn taasaa waxay keentay shacabkii iyo dowladdii in la kala fogeeyo taasaa waxaa keentay shacabkii in dowladdoodii ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dowladdii lagu dhegan yahay 4 sano ee ku dhamaysta waqtigeedii iyadoon waxba qaban oo lagu dhegan yahay oo isdifaacaysa waxaan idiin sheegayaa xaaladda dagaalan ku jirno naga bixin mayso waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna u naxaynin oo carruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowlad u shaqeeyo inuu shacab yahan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaanno aan isku soo noqonna annaga dhexdeenna propagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira propagandada beenta ah oo ciidamadii qalabka sideeyay oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kaneecada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkan ku dumay oo qabyaalad ah ma ogolaanayno annaga waxaas ogolaan mayno dalkan dib buu soo maray dhibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshaan taagannahay waxaan taagannahay in dalkeennii uu ka liito waddamada Afrika oo dhan uu ka liito annagoo la og yahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la og yahay dad active inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan nagu yareen aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yar oo danleey ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil dhex gelinaysa ummadda Soomaaliyeed way ka kortay hawshaas annagoo xaaladaas adag annagoo ku jirna wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oo aan ka wada hadlaynay dalkan sidii looga horeen lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aanan ummaddeena u naxaynin waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hortagno cadowgan oo dhammaystiran dhallinyaradeenna dumarkeenna culimmadeenna cid walba leh taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixanno oo aan heshiis ku gaarno annagoo ka hormarinayna wax walbaba danta guud oo wax yararka ah isku haysanaan meesha ka tuurnay musiibadaas dhacday qaran oo ay ku dhinteen dad gaaraya 400 oo aan waxba galabsan oo ay ku dhaawacmeen dad 400 kor u dhaafaya oo aan waxba galabsan waxay keentay qof walba oo Soomaali ah
inuu calaamadaas cas madaxa ku xirto meel kasta ay joogaan ay u midoobaan dadkooda ay u midoobaan dalkooda ay u midoobaan diintooda ay u midoobaan waxaan u mahad celinayaa marka doorkii dhalinyarada ay ka qaateen oo ay isugu soo baxeen oo dareenkooda iyo shucuurtooda wadannimo ay muujiyeen ay bannaanka isugu soo baxeen dhowr maalmood ay muujiyeen midnimo ay muujiyeen inaysan ka baqaynin cadowgaana haysta oo dhibka badan oo meel walba taagan oo ummadda laynaya ay dhiig u shubeen oo gurmad qaran ay u sameeyeen ay ku midoobeen inay bannaanka u soo baxaan oo ay la dagaalaan ay diyaar u noqdaan inay cadowgaasi ummaddooda ay ka qabtaan dalkooda ka qabtaan ololahan aan maanta ku baaqnay oo ah nabadgelyada magaalada muqdisho ololahan magaalada muqdisho keliya ma aha ololahan waxaa la rabaa inuu xubsiibto dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan ay u kacaan ay u dhaqaaqaan difaaca dalkooda ay u difaacaan waxaan idin sheegayaa rabaa inaan idin xasuusiyo oo meeshaan dhowr qof ay ka sheegeen markii ugu horeysay ma dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobeen markii ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ay iska tuureen gudnimada markii ugu horeysay ma waa laga horeeyay 50 sano ka hor ururkii SYL-ka ahaa SYL-ka ahaa oo u kacay inay dalka xoreeyaan ururka iyaga kaliya ma ahayn wixii dalka xoreeyay waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo ay kasbadeen ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed inaysan qabiil lahayn inaysan lahayn kala qaybsanaan inay u adeegayaan qaranka Soomaaliyeed inay isaga mid yihiin midnimada Soomaaliyeed inay keenaan taasaa ummadda Soomaaliyeed ku raacday ummadda Soomaaliyeed oo la socota dhalinyaradaasna waa ognahay waxay keeneen 1960kii xorriyadii aan ku diirsanay muddo 30 sano iyaga keenay hadda marka arrintan dhacday waxaan uga faa'iideysanaynaa waa anigii dhowr dal tagay waxaan rabaa inaan idin la wadaago Suudaan markaan tagay oo aan mas'uuliyiintii Suudaan aan la fariistay waxay igu yiraahdeen soo dhalinyaro ma qabtaan aawe dhalinyaradiinii dhibkaan idin haysta muddo 10 sano ah waxa ka bixin kara dalkiina dhalinyarada Soomaaliyeed ka bixin kara waxay siiyeen tusaale yaab leh waxay yiraahdeen dalkeenu wuxuu leeyahay 9 xuduud lahaa hadda ma laha laakiin 9 xuduud lahaa hal xuduud ma inta kale dalalkaas weerar yay ku soo qaadeen waa soo hujuumeen markastana dalkaas waxa ka dagaalay 4 jabhadood yaa ka dagaalay annaga hadda hal inkaar qabta oo dib wadayaal ah way waxa nala dagaalaya dawladda deris oo dib nagu haya ma jiraan waa hal inkaar qaba oo aan islaan ahayn oo aan cidna u naxaynin waxay yiraahdeen waxaan uga adkaanay imaqla si fiican imaqla waxaan uga adkaanay yiraahdeen waxaan uga adkaanay dhalinyaradeenii baa kacday yiraahdeen dhalinyaradii aan abaabulnay dhalinyaradii wax alla wixii iskool dhiganay qalinka waa dhigeen wax alla wixii shaqeynayay shaqadii waa ka tageen wax alla wixii ganacsadaha lacagii kulli waa dhaafeen waxay u baxeen kulligood inay dalkaas ka difaacaan 8daas cadow iyo 4taas jabhadood oo dalka rabay inay burburiyaan intaasna waxaa dheeraad ku ahaa waxay qabeen cunaqabateen hub siyaasadeed maxaan ku raahdaa ganacsi wax walbay qabeen waa isku tashadeen dhalinyaradoodan badbaadisay aaway yiraahdeen dhalinyaradiinni meeye diyaar muu tihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar muu tihiin dalka inaad u dhimataan diyaar muu tihiin inaad dhaqaale ku bixisaan ugu dambeyn dhalinyaro waxaan noo balana dalkan inaan xoreyno waxaan noo balana inaad dadkiina xoreysaan waxaan noo balana inaad diintiina xoreysaan oo aad sharaftaan taasna waxaad ku gaaraysaan maqla taasna waxaan noo balana oo aan ku gaaraynaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qalin ka dhigo waa inuu u soo istaago difaaca dalka marka aad dalkaaga difaacato marka dalkaaga xoreysato marka dalkaaga nabad noqdo markaas weeye waxbarashada waxay ku taaliya shaqo
dhalinyarada shaqaysa waxaa noo balana idinkana dalka inaad xoraysaan soo maaha xorriyadda dalka soo kow maaha soo muqaddas maaha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu